maxkamadda gobolka Murudice ayaa maanta xukun 5 sano ah ku riday boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow kadib markii uu dhawaan ka qayb galay caleemasaar lagu qabtay deegaano ka mid ah Puntland isla marhaantaasna lagu eedeeyay madashaasi ka yiri waxyaabo qaranka Soomaaliland liddi ku ah gudoomiyaha gobolka Murudice Axmed Dalmar Ismaaciil oo qaar ka mid ah warfidyaanka kula hadlaya xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyay xukunka boqorka lagu riday isagoona sharaxay qodobada kala duwan ee loo adeegsaday xukunkiisa waxa maanta abaar 12 barkii maxkamadda gobolka Murudice Hargeysa ay ku dhawaaqday xukunka xukunsane in Allah musta'an boqor Cismaan Maxamuud boqor Cismaan aw Maxamuud Maxamed kaasoo dacwadda maxkamadda soo galay 25 bishii Afraad 2018 ee diisu timi horena ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland u qabteen boqorku wuxuu ku eedeysnaa markii hore qodobada 219 paragraph 2 oo ujeedadiisu tahay in taariikhdu markay ahayd 15 bishii Afraad 2018 isagoo ku sugan degmada Carmo ee maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya uu khudbad ka jeediyay uu ku dhaleecaynayo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah isla markaana ku sugan xuduudda hore ee jiida hore ee Tukaraq kuwaas uu leeyahay looma baahna inay ku sugnaadaan xuduudda ee waxa haboon isla markaana muusaha cusub aan ugu baaqaynaa inuu ciidanka dib ula baxo eeda kuwa taasay ahayd eeda labaad waxay ahayd qodobka 328 taasoo ahayd inuu been ka sheegay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madax dhaqameedka Soomaaliland oo dhan oo uu yiri inaan kelmadaha yiraahdo isla markaana aan tago Soomaaliya gaar ahaan Puntland waxa ii fasaxay maxkamadda horteeda la istaagay qodob saddexaad oo ah aflagaada qaawan qodob saddexaad oo meeshaba ku jirin iyadoo marka horeba lala circiirayo oo loo taaglayay sida loo dhageysan la eedisan isku raran ayuu qodob saddexaad meeshii ka dhaliyay isagoo si jees oo kibir ka muuqdo maadaama damaanad ku maqnaa u hadlaya oo yiri laamaha cadaaladda iyo garsoorkuba wax cadaalada ma qaadayaan isla markaana waxaad sheebada ku sidataa xukun lagu soo qoray markii aan weydiiyay cid ay soo qortayna uu maxkamadda horteeda ka sheegay in uu og yahay xukunka inaan sheebada ku sito marka waxay noqotay maadaama maxkamaddu furan tahay dadweynuhu dhan fadhiyaan maxkamaddu furan tahay la islaba gaadhinba in hadii la akhriyo in xafiiska xeerlaalinta oo markaa diyaar ahaa ay maxkamaddu ku amarto inay isna qodobka ugu daraan eeda contempt of court maadaama jees iyo dhaleecayn maxkamadda horteeda la yimid sharciga inuu ka sareeyo isu qaatay isagoo inuu sharciga ka sareeyo oo isu qaatay damaanadna markii hore dibadda ugu joogay wax ka keenayaan uu taama garanayo isaga og marka waxa loogu daray qodobka 270 oo ah aflagaada qaawan ku sameeyay garsoorka dhammaan bahda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland maxkamaddu dacwadu way socotisay si aan loogu xukumin qodobkaas oo kaliya waxa lagu kabay cadeymaha loo hayo qodobadii hore loogu eedeeyay si kuwa laftooda loo iftiimiyo maxkamaddu waxay martay qodobkan lagu eedeeyo maxkamadda horteeda qodobada kalena cadeymada maxkamadda la hor keeno maxkamaddu waxay ku xukuntay markaa 5 sano xadhig ciqaabeeda maxkamaddu waxay u dhageystay dacwadda si feero furan isagoo contempt of court galay ayaan haddana chance u siinay in lagu cadeeyo kuwan kale iskala difaaco waxay maxkamaddu ku xukuntay 5 sano xadhig ciqaabeeda oo looga soo kala qaaday qodobka 270 jeeska iyo ihaanada uu garsoorka u geystay iyo bahda cadaaladda oo dhan oo looga soo qaaday 2 sano qodobka 270 iyo qodobka 219 isna looga soo qaaday 2 sano oo ku amrayay ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay dib uga soo baxaan jiida xuduudda ay joogaan uu yiri dib uga soo baxaan iyo qodobka uu been abuurka cad ka sameeyay shacabka reer Soomaaliland madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo salaadinta madax dhaqameedka iyo salaadinta Jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay meesha ayna taga waa la fasaxay markaas ay dacwadu u dhacday isku soo wada duub oo xukunkan maanta lagu riday boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow ayaa ku soo hagaagaya xilli uu muddooyinkii u dambeeyay xabsiga dibajoog ka ahaa isla marhaantaasina uu ku joogay damaanada Cabdullaahi Raash telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Hargeysa.